adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato laakiin qofku markuu adduunyada ka intiqaalu dhinto laqad kunta fii ghaflatin min hada fakashafnaa canka ghidaa'aka fabasaruka alyawma xadiid waxaa la odhan doonaa daah iyo xijaab ayaa kaa saarnaa noloshan laakiin maanta daah iyo xijaabkii kaa saarnaa waan kaa qaadnee araggaaguba waa xadiid baa qofka la odhan doonaa hebel baa go'ay innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey caalamka samadoo dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuh alxamdu lilah aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة للعالمين بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعقا أو كما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمدا لله إلهي بانكم هذين مساجد كجامعة إن قصوا كل ميي والله كل جين وحن دوننا ما ركتنا إلهي ندوانه أئمتنا يا علماءنا أخيارتا خير كبدن لمساجد كإن قصوا دويسي يا مجمعنا بركيسن كنا هلا يا كنا لا هلا يا أنت نبوحنا نباهنا إلهي ندوانه inaan ilaahay u dhowaanno oo aan aakhiradeenna u diyaar garowno oo aan adduunyadan aan ka qaadanna diin waxaan ahay ninka ka qaata uu khasaaray nolosha adduunyadu way bilaabantaa wayna dhammaataa ilma dhashay haddaad maqasho noloshii adduunyada ayaa u bilaabatay hebelow dhintay haddaad maqashana noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiraduna way bilaabantaay iyadu dhammaad ma leh haddaad maqasho hebel u dhintay noloshii adduunyada ayaa ka dhammaatay aakhiradii weynanka badnayd baana u bilaabantay hebel baa go'ay innaku markaan maqallo markaaba waxaa la isweydiiyaa daday adduunye muxuu ka tegey caalamka samadoo dadka khalqiga ku nool ee malaa'igtuna waxay isweydiiyaan hebel maxaa ka soo horreeyey innaku markiiba waxaan isweydiinaynaa markaan maqallo hebel baa go'ay muxuu ka tegey laakiin malaa'igtu waxay isweydiinayaan maxaa ka soo horreeyey nebigeennu calayhi salaatu wasalaam waa kay noo sheegay lahaa meydka marka la qaadaayo buu nebigu yidhi degta la saarto ee nacashka la saaro naftaa la sii waday hadday ahayd naf wanaagsan oo ilaahay taqaana oo adduunka dusheeda ilaahay amarkiisa qaadatay hadday ahaydna waxay leedahay anu waan liibaanay horay ii geeya bay leedahay qabrigayga horay ii dhiga haddii naftaa la sii wada ay ahayd naf ba'an oo xun oo mujrimada oo dembi badan oo shar badan hadday ahaydna waxay leedahay tani way khasaartay halkee baad ku wadaan hadalka naftaasi ay leedahay cid kasta ayaa maqlaysa buu rasuulku yidhi ilaa jinkiyo insaga un baanan maqlayn
hadday labada la maqashiin lahaana dadku ismay aaseen way argagixi lahaayeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maanta waa adduunya berri waa aakhiro weeyaan maalin buu nebigu arkay saxaabadiisa iyagoo meel fadhiya oo sheekaysanaya laanna saxaabadu bashar bay haayeen cabdillaahi bni cumar bnukhadaab baa lagu yidhi asxaabta nebi maxamed may qusli jireen haa way qusli jireen buu yidhi laakiin iimaanka qalbigooga ku jira ayaa buuraha ka weynaa buu yidhi malaa'ig may ahayna bashar bay haayeen sida innaku aan u shaqaysanayeen sida innaku reere iyo ubad aan u leenahay si ka badan bay u lahaayeen laakiin qulubtooda waxaa ku weynayd ilaahay baa ku weynaa diinta ayaa ku weynayd aakhirada ayaa ku weynayd maalin maalmaha ka miduu nebigu arkay jamac asxaabtii ka mid oo meel iyakoo fadhiya markaa ay sheekaysanayaan oy dhoolla caddaynayaan ee qosqoslayaan markaa buu nebigu ku yidhi low aghartum dikra haadimi laddaat la shaqalakum cama araakum canhu yacni almowt haddaad macmacaan dumiyaha xasuustiisa iyo sheekadiisa aad badsan lahaydeen buu nebigu yidhi qosolkaa aan nigu arkaayo waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam haddii asxaabtii nebi maxamed ay u baahdeen mar walba inuu nebigu dul joogo uu ilaahay xasuusiyo uu dhimashada xasuusiyo uu aakhirada xasuusiyo innakoo maanta zamankan joogna zaman alfitan zaman fitanta iyo mashaakilka ay bateen iyo fasaadku meel walba uu yaallana inteen uga baahi badannahay asxaabtii nebi maxamed in mar walba layna xasuusiyo ilaahay la kulankiisa aakhira inay jirto in lagu xasuusiyo inuu qabri kaa dambeeyo in lagu xasuusiyo waa arrin lagama maarmaan oo kulligan aan u wada baahannahay haddaad badin lahaydeen buu nebigu yidhi macmacaan dumiyaha warkiisa iyo sheekadiisa qosalka aan nigu arkaya buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam maad haleesheen maanad qososheen waad ka mashquuli lahaydeen buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waagii barye iyo gabalkii dhacaba maalin kasti waxa uu bini aadamku u sii dhowaanayaan waa qabriga weeyaan qabriguna marka uu hadlayaa wuxuu leeyahay anu gurigii keliga ayaan ahay anu gurigii darxiga u saaxiibka ahaa baan ahay anu gurigii madoobaa baan ahay waxaad iga shaqaysato uunbaad isoo dhiganayso iga heli doontaa nin reer madiino ansaariya janaasadiisii buu nebigu raacay calayhi salaatu wasalaam markii qabrigii la geliyey iilka la duldhigay ayuu nebigu saxaabadiisii ku yidhi istakfiruu liakhiikum wasaluu lahu tahbiit fa innahu al'aana yus'al buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam walaalkiin ilaahay dembidhaaf u weyddiiya su'aashii qabriga hadda la weyddiinayaaye qowlka xaqa in lagu sugana ilaahay u weyddiiya haddaa su'aashii qabriga la weyddiinayaa buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo su'aasha qabriga waa maxay waa saddexdaas su'aalood weeyaan man rabbuka man nebiyuka maa diinuka mar allii markaa qofka innaku aan dhigna qabriga een ka imanno ka u dambeeya ka soo dhaqaaqaya shanqadhiisa la maqashiin buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laba malag baa u iman doonta alfataanaan deedna way fadhiisinayaan qofka saddexdaas su'aalood bay qof walba weyddiinayaan hadduu boqor yahay waa la weyddiin hadduu caalim yahay waa la weyddiin hadduu maaragtaane weli yahay waa la weyddiin hadduu faasiq yahay waa la weyddiin bashariyadda adduunyada ku nool oo dhan saddexdaas su'aalood waa lala sugi doonaa man rabbuka ayaa ku rabbaynayey ayaa ku quudinayey ayaa ku arsaaqayey ayaad caabudaysay ayaad baryaysay ayaad rajaynaysay ayaad tala saaranaysay maa diinuka diintaadu maxay ahayd dhaqankaagu muxuu ahaa maxaad dhaqan ka dhigatood ku dhaqmaysay man nebiyuka ninka laynaga soo dhex saarayna maxaad u taqaannay marka qofkii muuminka adduunyada dusheeda ilaahay garanayay ee iimaanka qabay ilaahay baa yidhi yuthabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli athaabiti fi alxayaati addunya wa fi alaakhira wa yowma yaquumu alashhaad ilaahay tabaaraka wa tacaala qofka muuminka iimaanka qaba saddexdaas su'aalood ee qabriga qof walba lagu weyddiinayo ilaahay baa qofka muuminka ku sigi doono ilaahay baa jawaabta haleeshiin doona walaalayaal ilaahayna haynagu sugo allah haynagu sugo allahana inoo dhib yareeyo saddexdaas su'aalood baan qof kasta la weyddiin doonaa marka muuminkii adduunyada dusheeda ilaahay kaga baqaayay ilaahay maad arkin laakiin rumee makhluuqaa kuu muuqda makhluuqaad arkaysaa laakiin khaaliqa lama arko adduunka inta la joogo jidhkaad arkaysaa laakiin ruuxda lama arko adduunyadaad arkaysaa laakiin aakhirada lama arko inta adduunka la joogo manaaficda lacagtaad arkaysaa laakiin manfacadda salaada iyo manfacadda thawaabka ma arkaysid waa qayb aakhira taa lagugu tusin doonaa shayga maanta mushaahadaadka inoo muuqda ayaa hadhow toola noqon doona muqayabaat wax kaa qarsoomay buu noqon doonaa shayga qaybka maanta kaa qarsoon waxa uu noqon doonaa wax hortaada yimaadood aragto ayuu noqon doonaa maanta adduunyada inoo muuqato aakhira inooma muuqato
لكن قفكو مركو أدوية كي انتقالوا دينتو لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وحل أورندونا الداهي حجاب أيا كاسرنا نولشن لكن ما أنت الداهي حجابك كاسر وان كاقادني أرقاقو بوا حديد بقفك اللي أورندونا وأدوية دي بان نغن دونتا مش غيبي نغني دونتا عيال كيسية دبر كيسية داري كيسية أدوية دي سي يا لعقتي سي والله قريني دونا وحامركا واركي دونا عمل كي أدوية أو سوقبتي هدو الشر أهانا وحو أركي دونا عقوبة دي سي عردي سي هدو عقوبة دي إلهي عردي بو أركيا هدو خير أهانا ثواب كي أجر كي خير كي حسنات كي بو أركيا أدوية دي وحي نغن إسا وح كاقر صومي آخرة دينا وحكو موقتين نغن دونتا مركز مركا إلهي تبارك وتعالى أدونك إنت أن جوغنا لما أركي كرايو لكن آياتك إلهي بالله أركيا ومن آياته الليل والنهار هبينكو آيات ويان آيات ومحي معناه يقول وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو مالنتو وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو قوغا إيا جلالك وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو نولوشي جيرد وعلامة إلهي جريتان كيسا لغو قرانايو لبي يددك وعلامة جريتان كإلهي لغو قرانايو فقرق يقيند وعلامة إلهي لغو قرانايو جريتان كيسا عالم كان صدو أسعودا وحاد كده حركيسا إن إلهي النظام كيسو عالم كو شقينايو لكن نظام كإلهي عالم كانوا كم معمولايو والنظام غيبة ولا ينقى غرية ما أركي كرينو سيدا الروح دا جركا كجرتا إشاد وعيسانو أركي كرينين عنت دقدقاق أركيسا دكتا مغل كيقاد أركيسا لوكتا سعود كيقاد أركيسا مدح دقاقيسا أركيسا لكن روح دا بني آدم كما أركي كران لكن قال يا إسلام هل مركو قف كدنتو انتو بقفكا كدنتو وويان هذا ترى هذا محل أوي واقع قفكي قاعن كما قوين لغنا كما قوين دقلا كما قوسن ودن يحي جركي سيودن ودن يحي محل أوي هدي لي رادنا كل وضوح إليه شيء قيمها الهبة ماشي كبحي شيء قيمها لو محي والروح دي والروح ذا ماذا أركت مي سيادو قرنا يسا قلبك أيا قرنا أيا القلب يدرك الحقائق بين هذا العلماء قلبك أيا حقيقة صوتها بنا أيا شيء قيمها لها والروح ذا ويان روح ذا غيب ولا قارية ما أركي كريسد لكن إن جرت واحد كو قرنا حركات الأعضاء عالم كان هذا ركي صوتن وحويان وكالجسد ويان نظام كان عالم كودن وحا كوهوس جرا نظام كإلهي النظام الغيب ليدادو بركا مؤمن كي إيمان كقبي انتو أدوية جوغي بإله علاقة لها سؤال شوه الرئيس مركا ليدا من ربك وعلانيك الربكي والله بوليه مهرد دايدو إمن ربينين الله باي الربينيي دكانكو إمن ربينين إلهي باي الربينيي بارتو إمن ربينين إلهي باي الربينيي دولتو إمن ربينين إلهي باي الربينيي حوله إمن ربينين إلهي باي الربينيي أنو كمان نولين وحنا الدوية الدولية الله داني بل أمرك إلهي بانكون نولا لكن سؤال شهادتك ما أنت هذه مقرفون لقاتوا لنا ورمحات كون نوشهي نول بحالك أي أسبابته أي كسو قشر دخل جيسو هلكو كسو قلبه مركبه كو شاقي مدمحوك ورن والله مهرد يرو هلكا كنت هلا نكون نولا مدوحوك ورن عيال كيف بدي بدأ أبحيو كواسا كون نولا هدينا بحين ما بنولانين مدمحوك ورن بير يربان كون نولا بير مدوحوك ورن أقل يربان نو كريسنو كون نولا ريجي بوتينو وحيد هذا اللتراتكي بكون نولا اللتراتكي معاشكي مي وين ترى هذا إلهي أمر كيسان كون نولا أنكو الذي يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفيني والذي يميتني ثم يحييني وأصول الإيمان أصول العقيدة وأين قفكو قرطاع دودا هذا استعمال ليسو شفاء الله مسعته شفاء حق إلهي بكتما دا دكان كاقي مهرد دادن يسوق قاقن وأسباب ويان لكن رزق حق إلهي بكإيمان يا وأين أتقرتا ربك والله ويان معبودك وإلهي ويان كعبادة متيستي وإلهي ويان كبرية متيستي وإلهي ويان كالرجاء متيستي وإلهي ويان كعبسدة متيستي وإلهي ويان كليجي رجاء كليجي كعبصو كليجي بريو بايداد كليجي وشيغو ربي والله دين تيدنا الإسلام رقم كيجو إسلام وحكى لعنكم الرقم وحكى لما آمن سني
diin baan u noolahay diin baan baranayaa diin baan ka shaqaynayaa qofka diin baan ku jeclaanayaa diin la'aanna waan ku nacayaa man axabba lillaah wa abghada lillaah wa acطaa lillaah wa manaca lillaah faqad istakmala aliimaan buu rasuulku yidhi ninka hadduu wax bixin ilaahay dartii u bixin hadduu wax mancin ilaahay dartii u mancin hadduu cid jeclaan ilaahay dartii u jeclaan hadduu cid nici ilaahay dartii u nici kaasi iimaanka waa dhammaystirtay buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waa inaad noqotaa qof lilaahi u noolow taariikhu saxaabay ku taalla siiratu caliy bnu abi aalib nin baa yidhi hal min mubaarisin waa xilli macrakadii muslimiintuna xagga ay joogaan gaaladuna xagga ay joogaan ayuu yidhi ninkii ugu itaal weynaa gaalada ayaa soo dhacoo yidhi hal min mubaarisin ayaa macrakadda iigu soo dhacaya cali baa u dhacay radia allaahu canhu caliy bnu abi aalib ninkii intuu qabtay buu legday markuu seeftay qaatuu yidhi geli markuu isidhina caliy bnu abi aalib oo ninka kor fadhiyey buu qandhuuf wejiga lagaga tufay markaasuu cali qandhuufaa lagu tufay wejigaa lagaga tufay gaalkiina dhulkuu jiifaa calina seeftii buu haystaa qandhuuf baa lagu tufay cali oo sarreeya uu ka kacay cali saxaabadii waxay ku yidhaahdeen yaa caliy maxaad uga kacday baa lagu yidhi gaalnimana ninkani diinna waad ula dagaalamaysay adigana qandhuufa kugu tufee waar marka hore ilaahay dartii baan u dagaalamayey hadda cadhaa i soo gashay buu yidhi naftayda darteed inaan u dilan ka baqay buu yidhi lilaahiyad waxaan qaban ilaahay dartii baan u qaban ciddaan jeclaan ilaahay dartii baan u jeclaan ciddaan nici ilaahay dartii baan u nici waxaan bixin ilaahay dartii baan u bixin waxa khayran sheegi ilaahay dartii baan u sheegi khayrkaan dhegaysan ilaahay dartii baan u dhegaysan waa inaad noqotaa qof diiniya oo diintu ay xakamaynayso si su'aasha qabrigu kugu dhib yaraatoo tidhaahdo aniga diintaydu waa islaam markaasaa nebigeenna moxamed calayhi salaatu wasalaam baa la hor keeni oo la odhan doonaa maxaad u taqaanay shakhsigan markaasuu muuminkii leeyahay waa nebigaygii moxamed calayhi salaatu wasalaam saddexdaas su'aalood muuminku markuu qabriga ka jawaabo ayaa samada laga dhawaaqi oo la odhan doonaa an sadaqa cabdii addoonkaygii run buu sheegay afrishuuhu min aljanna firaash jannada ka soo qaadoo u gogla walbisuuhu min aljanna dhar jannada ka soo qaadoo u xidha waftaxuu lahu baaban ila aljanna albaabna jannada uga fura jannada halkaa ha ka daawaday baa la odhanayaa dhulkaad ku celisay meydka dhulkaan ku aasnay minhaa khalaqnaakum wa fiihaa nuciidukum halkaad ku aastay waa dhulka dhexdiisa weeyaan inna kitaaba alabraari la fii cilliyiin jannaduna waa fowqa 7 samaawaat halkaasaa qofka muuminku jannadiisii ka daawanaya sida innakuba aaladdan yare imminka aan haysaneen moobeelka ijaabadda aad ku haysatid qofka adduunyada halka ugu dambeeya jooga maqal iyo muuqaal halka aad uga daawanayso qaaradda amriika qofkii joogay ayaad adigu halkaa jooga maqal iyo muuqaal aad ka wada hadlaysaan muuminka qabriga dhexdiisana nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa inoo sheegoo yidhi qabriga dhexdeeda daaqad looga furayaa halkaa buu ka arkayaa jannadiisii iyo naciimtiisii iyo xuralcayntiisii markaasaa la odhan doonaa iska seexo qabrigu waa meesha muuminku ku seexdo weeyaan maxaa qabriga loogu dhex seexanayaa leanna jannada dhexdeeda hurda ma jirto annawmu akhu lmowt wa ahluljannati laa yanaamuun baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam geeridu dhimashadu hurdadu waa geerida walaasheed ahluljannuhu jannada hadday galaanna ma seexanayaan buu rasuulku yidhi adduunyadan maalintiina waad foofi waa macaash kasbi xalaalaad ka soo shaqaysan waad cibaadaysan waad soo daali habeenkii baad yar seexan si daalka lagaaga bi'iyo ahluljannuhu maxayna la seexanaynin waxay la seexanayn waan kuu sheegayaa laa yamassuhum fiiha nasab wamaa hum minha bimukhrajiin baa ilaahay yidhi ahluljannuhu jannada haddii ay galaan jannada dhexdeeda wax tacab oo daaloo soo gaadhayaa ma jirto jannadaa ay galeenna kuwa ka baxaya ma aha marka ma badaalayaan ma walwalayaan ma walbahaarayaan ma gaboobayaan ma dhimanayaan ma bukoonayaan waxay tabanayaan ma jirto waxay niyadda ku qabtaan waa la hordhigayaa marka wax daalinaya oo ay u baahdaan inay seexdaan si daalku uga baxo maba jirtaba marka meesha muuminku ku seexanaya waa qabriga weeyaan ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون وكي إلهي جل وعلا في سورة ياسين إنه قل شيء سورة أفوفينا با إلهي يري إسرافيل با سورة أفوفايا
deedna dhulkay ka soo bixi doonaan deedna xagga ilaahay baa loo soo ururin doonaa markaasaa qofkii muuminka iimaanka lahaa waxa uu leeyahay waa maxay buu leeyahay iyaa hurdadii naga soo kiciyey waan jiifnay waan hurudnay hurdada maxaa naga soo kiciyey buu leeyahay markuu arko khalqigii oo banka qiyaama sidaas ku dhex socdana wuxuu leeyahay maanta waa maalintii nebiyadu ay noo yabooheen ilaahay iyo rusushiisuna run bay noo sheegtay buu leeyahay maanta waa maalintii lanoo yaboohay yowma alqiyaama weeyaan marka noloshan adduunyadu waa maalin iyo habeen nolosha qabrigu waa habeen nolosha qiyaamuhuna waa maalin keliya nolosha adduunyadu wajacalna alleyla waannahaara aayatayn وآية لهم الليل نسلخ منه النهار با إلى هيدي آية الليل آية النهار نولشن الدنيا أن كنا لهي ومالني يا هبين مالنتينا واد فوفيسا هبين كينا واد نسنيسا واد سيحانيسا قبرك هدي لقلنا وهل هبين ويان صبيحتها يوم المحشر وبرق يقولنا ومالك قيامها ويان يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر نعم الدنيا انت اللي جوغو واحد جوغي سوا مالني هبين قبرك هدين لقو ديغنا وهبين كليا هبين كاسو النبي نوشي يقولي قبرك والله مدويان أما وروضة من رياض الجنة إما حفرة من حفر النار مؤمن كينا بيربرها جنة كميدا لوغا ديغيا قال كينا waxa looga dhigaya godgodod kanaarta kamida looga dhigaya dina uu hurda oo 70 sano adduunyada uu soo daalay ayaa la leeyahay halka ha ku daalo ha ku nasto min aadam alayhi salaam laga bilaabo ila joogadeena wixii adduunyada bini aadam soo maray caalamul barzakh bay ku jiraan inna way hurda way nasanaysa oo waxa qabriga dhibaato kuwa kale ku haysta war uma hayaan way hurda مالك قيامه صورة الله عفوفه بقبرك كصبح دونان ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا حسرة في نشورهم وكأني أنظر إليهم وهم ينفضون تراب على وجوههم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور نبي عليه الصلاة والسلام وكيلها ذاتك أدونك دوشي لا إله إلا الله إهل كيغا النقضة الله inaga dhigo qabriga markay galaan ku kaliyoobi maayaan maalinka qiyaamaha markay soo baxaan xasrad iyo nadaamo iyo murug galiya arki maayaan waxaad moodaa buu nabigu inaan u jeedoon arkaayo ayagoo qabuurihii ka soo baxay oo ciidda intay iska hurgufeen ay leeyihiin alxamdulilaahi alladii adhaba canna alxasan ilaaha waxaan ku mahadinaa naxdintii murugtii annaka naga qaaday rabbigay waa kii dhaafitaanka badnaa ee shakuurka ahaa weeyaan ee afcaasha wanaagsan ee addoonku la yimaado raalliga kaga noqday weeyaan dadna way soo baxayaan yowma alqiyaama maalinta sara jooga waa yoom qur-aanka yoom buu sheegay habeen ma sheegin yowma laa tamliku nafsun linafsin shay'a yowma yanduru almar'u maa qaddamat yadaah يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم الجمع يوم التغابن يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم التغابن يوم الطامة يوم الصاخة هبين من مغليسد هبين كدون واكاسه قيامها مركو إلهي كور رمايو ومالين وين هبين مال ومالين كليا وفي يوم كان مقداره 50,000 سنة يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يوم إلهي تبارك وتعالى يوم كاسنا قرآنك إلهي نوغو الشيغي وكنتم كنوا صندود ابن عباس رضي الله عنهما مفسر كي قرآنك وحو كفسروا يري أفرتن كنوا صنوا على الجوغي توبان كنوا صنوا حسابتا كل ماني دون تبو يري أفرتن كنوا صنوا يا سيد الله تاقنان دونا toban kun oo sanana xisaabta ku dhamaan doonta nin carabi oo reer baadiya ayaa saraka u yiri ya rasuulallah maalinka qiyaamaha khalqiga ayaa xisaabi doona markaasuu ilaahay baa xisaabi doona rabbiga xisaabi doona markaa ninkii carabiga intuu sii jeestay buu yiri najawna wa rabbil ka'ba ka'bada rabbigeega ayaa ku dhaartay waan badbaadnay buu waan nabad galnay buu yiri markaa buu nabigu soo noqo si aad ugu nabad gashay buu ka yiri bal ii sheeg wuxuu waa kariim ilaahay waa kariim
hadduu doono iska kaaya cafin buu yidhi ma cid baa isaga qabsanaysa buu yidhi waa kariim kariim ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم بنبي من إنك مدى مجرو هدو جرى نبو رسول كل أيهي ربي جيبوا قيامه الله كل مدونا الدونك يا ربي جي مال انت عد وكلا أفعلين يسا مجرته لغة عربية لغة هذا الله يعني حاجة ميدكتو ايجي عمل جيسيبو اركي حاجة بدحدو ايجي عمل جيسيبو اركي هورتيسو ايجي نارتيبو اركي فاتقوا النار ولو بشق التمر ابو نبي يقول عليه الصلاة والسلام نارتا قاشان كسميست ابو نبي يقول قاشان كي يشا تمر جيحيد وصدقاء عضو بحسان كولي نقطنا تمر جيحيد ولو بشق التمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة ابو نبي يقول تمر جيح تمر إني كان هلين بو نبي يقول لي هذا الكوناكسن هكو هذا كلمة وناكسن كو هذا سبحان الله وكلمة وناكسن الحمد لله وكلمة وناكسن أمر بالمعروف وكلمة وناكسن ذكرك وكلمة وناكسن استغفرت وكلمة وناكسن لا إله إلا الله وكلمة وناكسن ولا القاقا مسلم قد خيرك عضو الشيكتا وكلمة وناكسن منكر كوضو مدى كريبتانا وكلمة وناكسن كلمة الطيبة صدق أبو نبي يقول عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين آياتري مرقو النبي يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا بيتري يقول النبي صلى الله عليه وسلم مالك قيامها ضدك والله سو حشرين دونا أيكو عقاقا أو بلا درأة أو كبلاءانة أو مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام أيكو عقاقا كبا موتان درنا موتان قفوا البباردي سيبا كتا الله واسدي لقو دلي ويان مركز عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رقي دمر مالنتاس ما لسدح سعونيا هوا لسدح سعونيا قفك كلمونا إيجين مركز أبو نبي يا عائشة قفك أكسعود مالنتاس من نبا ما قبض با ما نقبا ما بإيجي يا أبو رسول كل هم بقى مجربوا لي هورتي سواحة على النار تي جهنم قفك عطاء السلمي رحمه الله نكال أورنجري وحوها نن مروق بدن بوها مروق بدن سلف الصالح صدن سنة بالي نكاس دولك مويان عرك ما ايغن markaas lagu yiri murugtan badan waa maxay baa lagu yiri ma dadkan waxay ogaan baad adigu ogaatay baa laga yiri dadka aniga waxba igama galine taydan anigu aan ka hadlaya waxaan inii sheegayaa al mawtu fi unuqi geeridi baa qoorta ii sudan wal qabru bayti halka la dhigayana waa qabriga weeyaan wal qiyaamatu mawqifi meesha la joojinayna waa banka qiyaamo weeyaan وعلى الصراط طريقي وضد الله يمرين دوننا وجدك الصراط ويان وربي لا أدري ماذا يفعل بي ربي جاي وحي يقول سمين دوننا كما ورقبي بود عنكو انت سو مرحلة نيكا اي سوغا يسو اساقو هادو قصلي حق قصلي بويري انو تايدا كورما يا بوري انت نولا هاي اوهين بان الله شهده كودا ميسان بويري ما انت وادويو بريتو لو آخر ويان عمل كاغا الله دادا عيسى محاد وضاتا محاوتا أنوغو مانتا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شدة قيامة مرقو نبي جانو كورم عليه الصلاة والسلام أي تري يا رسول الله مالنكا سر جوغا أيا وات كيسان كرا يبي كتري من يقوى أيا كرا يبي كتري كنت كنو صندون مرقابو النبي يقول يا عائشة وفق مؤمن كإيمان كله ee adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay waa loo fudaydin salaada faradka inta tukataan in laag baabanka qiyaamo looga dhigi buu yiri inta tukane salaada maghrib 3 daqiiqo 12 daqiiqo 13 daqiiqo muuminka iimaan kale ee adduunyada intuu jooga ka sahay qaatay ee ilaahay tabaaraka wa tacaala agtiisa wax sii dhigtay ee aakhirada ku sii xisaabtamay ee talaabadu qaadayaba eega aakhiradiisa هذا الكنتو كسو بحين قفك مؤمنك آخرادو إيقع دقاليه سينتو ننبحين آخرادو إيقع ماشو مريو آخرادو إيقع ماشا عنو السعودة ما مال آخراد ذي إيقع داوعي سبا مسوا مال آخراد ذي وحيط رئيسا
hadalka iga soo baxaya ma hadal aakhiradayda dhaawacayaba oo dib ii geysanaya hadhow toole mise waa hadal aakhiradayda aan ku badbaadayo dhaqaalahan bixinayo ma dhaqaale aakhiradayda i kabayaba oon aakhiro ku badbaadayaba oo ma meel fiican buu iigu dhacayaa mise aakhiradaydii buu dhaqaalahaas iga bixinayaa oon ka qabsadaa intay goorigoor tahay mu'minku uu xisaabtamaya mu'minka adduunyada dusheeda ilaahay ku soo adeecay ku soo caabuday salaadaa yare faradka inta uu tukanayay in la eg baa banka qiyaama looga dhigayaa dadkii ilaahay yaqaanay daraariya habeen aakhirada hortaalla iyaka aakhiradu qofka hadday hortaalla maxay aakhiradu kugu saamaynaysa noloshaada aakhirada maxay kugu reebaysaa ma taqaanaa waxaad doonta ku hadli kari maysid waxaad doonta eegi kari maysid waxaad doonta cuni kari maysid sidaad doonta u noolaan kari maysid waayo dareenka aakhirada qalbiga hadduu galo dareenkaasaa xumaanta oo dhan kaa joojinaya wanaag oo dhanna kuu diraaya dareenkaasaa qofka qabanaya qofku inuu macsiyadda waxa kaa qabanaya waa dareenkaasi waa iimaan weeyaan iimaan ilaahay rumee aakhirana rumee ilaahay rumee aakhirana rumee waa labada nebiyadu dadkay ugu yeedhayeen nebi kastoo adduunka la keenay ummadda ilaahay xaggiisuu ugu yeedhay aakhiradana xaggeegu ugu yeedhay waxa ilaahay kaaga raalli noqona waa iimaan iyo camal saalix waxa aakhiradaadu ku badbaadaysana waa iimaan iyo camal saalix maalin maalmaha ka mida ayaa nebigeennu calayhi salaatu wasalaam magaalada madiinuu soo maray wuxuu arkay markaa saxaabada qaar ka mida aqal yaroo cariishee markaa ay dhisayeen markaa buu nebigu yidhi maxaad haysaan waxay idhahdeen aqalkan baa soo yar duusayo waan la tiirinaynaayo waan la dhidhisaynaa markaa buu nebigu yidhi wallaahi anu ma arko ilaa saacaddaa ka degdeg badan buu ka yidhi saacadda qiyaamada ka degdeg badan buu ka yidhi intaad aqalkaa dhisaysaan malaggii suurta afuufayey waa israafiil calayhi salaam ayaa buuqii qaatay buu rasuulku yidhi foonintii buu qaatay lugihiina u kala fidiyey markaasuu sidaa u haystaa idan ayuu sugayaa idan saxaabada rasuulku hadalkaa markay maqleen waxayba moodeen inay saacaddu berri ay dhacayso oo hadda suurta lagu dhifanaayo markaasay yidhahdeen yaa rasuulallah maxaan idhahnaa noo sheeg markaa buu nebigu yidhi waxaad tidhaahdaan xasbuna allahu wa nicma alwakiil dhahda wallaahi markuu aakhirada kala hadlaayo markuu jannada kala hadlaayo markuu naarta kala hadlaayo markuu qiyaamada kala hadlaayo dareenkoogu wuxuu ahaa si waxay jannadiiyo naartii hadda ay arkayaan isha ku hayaan innakana maanta maa sha allah dadka muslimiinta dareenkaasi maanta waa nagu yaryahay ilaa man raxima rabbi mooyaane lanna qalbigan uu saamoobaa qalbigu إن القلوب لا تزدأ كما يزدأ الحديد إذا أصابه الماء برتا حديدك بيوه هدي تابتان دحل بيكون ريبان بيوه قلبك بن آدم كنا دحل بو يشاء ها قلبك دحلينا يا وحنا ديجيس قلبك سامين يا وحنا ديجيسنس قلبك سامين يا وحنا تكوه ليس قلبك سامين يا وحنا تكفكر يس قلبك سامين يا وأفرت قصبودات قلبك ابن آدم كسعتوين أفرتاس صابات القلب بعلماء ولادان وعاد يكتب قلبك قلاع وعاد كهذا قلبك قلاع وعاد كفكرته قلبك قلاع وعاد دقيسته قلبك قلاع قلبك دحل كم حالك قبيا لبس شيء بعلماء ولادان لبس شيء قلبك دحل لك قبيا قرآنك آخر سكي سؤال الله بديو يا آخرته أنت بدل لا شك شك الله حسوسه لك شك أيوه labadaa maanta may nagu yariin mise way nagu badan yihiin yaa qur-aanka akhriskiisiina waa nagu yaraaday aakhirada sheekadeediina way nagu yaraatay bal sheekada aakhirada saxaabadu maskiidka intay ka qaadaan bay suuqa aakhirada kaga sheekaysanayeen dadka muslimiinta zamankan joogana sheekadii adduunyada intay ka soo qaadaan dibadda ayay maskiidka dhexdeeda keenayaan isbeddelka nagu dhacay eega suuqa masaajid
سوق المسلمين كمصلاهم بيقول علي بن أبي طالب سوق المسلمين أسواق المسلمين تو وسدا مساجد أو كلويان سدا مساجد إله الله قوينينا يو أيا زمن النبي سوقنا إله الله قوينينا يي سدا مسجد كده حديث إله الله قو عاصيين أيا سوق وجينا إله الله قو عاصيين إنك أنا زمن كنا ما أنت شيء كذي دبادة تالي أيا الله جاي أبا إن لك أنا مسجد كجوديهيس نبو أركي النبي عليه الصلاة والسلام مسجد كده حديث بيله كي يبو هنا يا مرقاب النبي يقول إلهي كوما سوء اللي يبو كيري هذا أركتان بو النبي يقول إن مسجد كده حديث بيله يبادي كي يبو هنا يا وعاتر هذا إلهي كوما سوء اللي يده هذا أركتانا نن مسجد كده حديث جناعسي هي تجارة كده سمينا ينا وعاتر هذا إلهي كوما بركة يده هذا إنما بنيت المساجد لما بنيت لها مساجد وحي لورد سيبا رسولك يري نولش مساجد تالا بي علمدو ليهين ايا لرباين ديبدا لو ساري نولش ديبدا تالا مسجد كاين لكينا ماها عهدي نبينا عليه الصلاة والسلام يا عهدي صحابة دادك مسلمين تو نولش مسجد كاي كو هايستان اي ديبدا ولا بحين هل كان إلهي بك كبقين ديبدنا إلهي بك كبقين هل كان إلهي بك كو أمانين ديبدنا إلهي بك كو أمانين هل كان آخرته كو وينين ديبدنا آخرته كو وينين والله سيرته كو طلع عمر بن الخطاب سوق مدينة تو قلبه ورنجري هل كان إن فريسية إلهي ساعدها الرومين كاليا عبد الله بن عمر انتو يما طفيل بكو ورنجري إن مري الرعب ورنجري حقين تقنا سوقا تقنا سوق يوم يصوب حيان هذا مالك قالوا لي نمر الراع هذا مالك سدحات بوري الراع وعبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب يا طفيل وتابعيها مالك اسو مرقه دور عيسى مرقه سوقي كحل عليي وكحل عليي بوكير يا ابن عمر سوق وين دقيسا مالين والبا بضاعتنا كما سو يبستد بضاعتنا وما يبقيسد بضاعتنا ما سو بايعدد ما لها ددكو فديانا نما فريسيد ورالكن إن فريسي بود رالكن نوجو شيء بوكيدي ورالكن دين تنوجو بر شيء كذا صحابة دين بيهيد مرجع ابن عمر باكويد ورا كان على شبورن لي إنما نقض من أجل السلام وحنوك الله إنا وحويان دتك إن السلام نوم بنوك الله إنا بوكيدي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بنوك الله إنا والدعاء ويان دعاء بنوك الله إنا مسلمين تنو دعائنا إنا يكونوا إنه دعائنا بقول قفانو دعينينا بقول كاسي وينو جوابين ودعو لقى يا بقول كا أولياء إلهي أنت يكون حجرته إن إلهي دعاء ضنا أقبله صلاة المسلمين اللي سوى معي صلاتين السلام عليكم نبت قل يدي إلهي يا نحريست إلهي يا بركات إلهي كركا هذا كي كلا مسلم كواحد كليه هي أديكنا نحريس نبت قل يدي إلهي يا نحريست إلهي يا بركات إلهي كركاغا هذا بوكليه سلامتا صلى سوك الله هينا بقول قف سلامينا لما بقول قف سلامتا أمد سلامينا وينو جوابيان وحي قرنا يا صحابته إن سلامتا مسلمين تعالى دحمرين إلهي انتو أقبلوا إن النبض هلان أو نحريستي هلان أو بركتنا هلان إنكم بقاش كيو بدا عد يا دويد الله كله هم ويا نسنه نبي الله كله هاي ولقون ولا نجمر دعسنا ما أنت سلام تاسع لقول درجيا علي بن أبي طالب إنه يمدو كيدي صاحب العيال بان هي معيشتي بيقو أتكاته مركز لعلك تنام بعد صلاة الفجر بوكيدي ما لها صلاة الفجر كذب آيات صحتها بوكيدي مركز ما يمسحه لعلك تمشي أمام من هو أكبر منك سنا بوكيدي ما لها قف كاد أوين مركز لا صعته آيات هر صعتها بوكيدي هذا هر مرتع مركز مي حدنا مركز دعاء سنة يسد ما لقى يا باين الله بدأ والد الله يدم بدأ أنا دو ويدين مركز ها مركز برتا أرزاقه كاحد واتاس لبدأ والد بعده كوب درب أرزاقه ويكون فرمية ما لها إنكم يقول أحمد كيا جنا يا مي سلام تدتك أي سلام يا بالرزق كده حركيين
والدك دعادي سيود دعينين بالرزق كده حركيين استغفرت أي بدنيين بالرزق كده حركيين صلاة الضحى أي تكنيين بالرزق كده حركيين صلاة الضحى عهد النبي عليه الصلاة والسلام واحد موديس الصلاة جمع إلا تكني مسجد زحمة عريرك كده عاية دينتن إلهي نوم السنين كليا إن آخر ما فعدت ونقبل أبنتو بل إلهي دينتن وحي نوسيي إن ندون كان يآخران كودرنا كل بانو marka noloshan adduunyada intaan haysano waa fursad yaan nضيعine adduunyada diinaha ka qaadano diintana asaaskeegu waa iimaan iyo yaqiin weeyaan yaqiin iimaanku waa maxay ilaahay rumee yaqiintuna waa maxay aakhiradu ha kula weynaato wallahi hadday aakhiradu inala weynaato dhaqankeennaa toosi oo risiqeennaa xalaal noqon oo mujtamac oo dhan baa isbedeli waayo laana mujtamaci waxay noqonayaan mujtamac aakhiro ku xisaabtamaya sidii labadii nin ee xadiiska nebigu noogu sheegay fi sunan nin baa nin dhul ka iibiyey dhulkii markuu gatay waa dhulbeereed buu ahaa uu falay markaa khasna dahaba markaa uga soo baxday jarra min adahab uu qaatay uu la ordo ninkii lahaaba uu keenuu ka yidhi war dhulkaad iga iibisay dahabka intan leeg baa ka soo baxee malaha waad ilowsaneeda iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi may anu kuma ogeyn adaa ilaahay kaa siiyey adaa iskale iska qaada buu ka yidhi war waxaan adigaa le iga qaado innaga zamankeenna waa maxay war waxaan anigaa le isii weeyaan teen waxaan ku dagaalamayno dhulkan anigaa le gurigan anigaa lahaa meheraddan anigaa lahaa waxaan anigaa lahaa baa isku haysannaa iyaku waxay taagnaayeen dadku markay hagaageen war waxaan adigaa le iga hoo iyo kaa qaadan maayo may ma dhici karto may adaa iska leh adaa ilaahay ku siiye iska qaado may dhulkan adaa iga iibiyey malaha waad halmaamsantahay adigaa iska leh iga qaado waxaan malihi anigu yahay lacagta intan leegna anigu kuma siine may labadii nin intay isqabsadeen bay maxkamadda tegeen maxay isku haystaan kan wuxuu leeyahay xoolaha nin kalaa leh ha iga qaato kanna wuxuu leeyahay war maliye isagaa ilaahay siiyey ha iska qaato qaadigii markaa qaadi fiican buu ahaa qudaada zamankan laga yaabay inay odhan lahaayeen xoolaha dawladda ale iska keena qaar baa iska fiican way jiraane laakiin kuwadda waxaa iska jira dawladda u shaqeeya moogtahay xoolaha dawladda iskale iska keena halka ka baxay ninkuna mu odhan wuxuu yidhi adu maxaad leedahay ubad wiil adiguna gabadh labadaa isku guuriya labadaana xoolaha siiya buu yidhi bal fiirso islaaxu waa cajiib halkaa hadday islaaxdo waa cajiib halkaa hadday xumaato laakiin dhegayso qisad kale saddex nin baa nebi ciise raacday calayhi salaam siday ula socdeen ayay yimaadeen meel bannaanka uu dahab ku yaallo dhaymanku markaasuu nebi ciise ku yidhi waxaan waa dhayman waa dahab waa jawharad markaasay yidhahdeen noo qaad markaasuu nebi ilaahay soo diray iyo adduunya meel ma wada marta buu ka yidhi markaasee dee anna kaa qaadanaynaa dee haddaad qaadataan in raaci maysaan waad iga hadheen ogaada buu yidhi diin iyo adduunya isma raacda buu ka yidhi waa nebi zaahid waa nebi ciise calayhi salaam saddexdii nin way ka hadheen baa la yidhi nebigii ayaan darrada eeg markaasay dahabkii qaateen way la socdeen way la lugeeyeen magaaladii markay u dhowaadeen bay yidhaahdeen haddaan maalin galno waa la naga dhici habeen han ku beegno laakiin waa gaajoonaynaa way tashadeen waxay yidhahdeen laba dahabkaas sii ilaaliso midna magaalada intuu tego cuntahay noo soo qaado yuuna cidna inoo sheegin waa hagaag kolkuu ka dhaqaaqay labadii dahabka ku hadhay ilaa shayddaankiiba dhiigga bini'aadanka dhex socdee ayaa wuxuu yidhi mid walba midka kaluu ku yidhi dahabkan labadeennu buu nugu fiican yahee ninkaa markuu yimaado aniguna waan la hadlay waan jeedin adiguna midida halkaa ka geli maydkiisana bahosha han ku ridno han ku aasno dahabkana labadeennu han kala qaadanno marxaba kiina uu sii socdaa shayddaanka isagana dhiiggiisii ku dhex jiro wuxuu ku yidhi dahabkan adigoonbuu kugu fiican yahee cuntada intaada soo cun ayakana u soo sumee markay dhintana dahabka iska qaado maxaa ka dhacay kula tahay meeshaas uu yimiday cuntadiibuu u dhigay isagii bay khaarijiyeen cuntadii bay cuneen iyagiina way iskhaarijiyeen
nebiyullaahi ciise calayhi salaam ayaa soo maray dahabku halkii yaalla iyo saddexdoodii oo mayda markaasuu xawaariyiintii ku yidhi adduunyadii ubadkaygu sidaas ku galeen eega buu ka yidhi waa kaas halkaas halka laga hagaagaa waa qalbiga halka laga xumaadana waa qalbiga inna fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kulluhu wa idaa fasadat fasada aljasadu kulluhu alaa wahiya alqalbi buu nebigu yidhi calayhi salaatu wassalaam waryaada buu nebi maxamed ina leeyahay dhegaysta bini aadanka waslad baa ku jirta hadday hagaagto jidhkoo dhan baa hagaagi hadday baanaatana jidhkoo dhan baa ba'naanoo xumaan taasina waa qalbiga buu rasuulku yidhi qalbigana wax kale ma hagaajiyaan qalbiga lacag ma hagaajiso qalbiga waxa keliya hagaajiya waa markay degto ilaahay macrifadiisu macrifatullah cuthmaan binu cafaan allah raalli ka noqdee addoommihiisii addoon ka miduu u yeedhay maalin wuxuu idhi lacagtan qaad abudar alkhifaari u gee hadduu lacagtaa abudar hadduu lacagtaa kaa qaatana xor baa tahay buu ka yidhi xor waan ku xoreeyey abudarna markaa magaalada madiina dibaddeeduu degganaa ribda meel la yidhaah oo cuthmaan binu cafaan baa ku yidhi halkaa u gur adigu waayo waa nin zaahida buu ahaa qarnigii nebigaad mooddaa inuu joogo isagu dadkan taabiciinta ee diinta ku soo gadaal dambe ka yimid ay adduunyaday la yimaadeen oo dhanna uu nafinaya isagu dharkii nebi maxamed uu kaga dhintay buu sitaa weli cariishkii nebi maxamed uu ku ogaana uu galaa cuntadii cahdigii nebiga uu nebiga la cunayana weli uu cuna isagu abudar alkhifaariyi radia allahu canhu marka ninkii addoonka ah lacagtii buu la soo orday meesha ma soo dhigan nin baa lacag diidi kara soo sidaa maahinde ma nin baa lacag diidaya waa iska jecel lahay uu yimiday uu salaamay wuxuu idhi amiirkii mu'miniinta cuthmaan baan salaankaaga sidaa waan ka qaaday bal warran isaga ka warran daar alkhilaafa ka warran masjidkii nebiga ka warran muslimiinta xaalkooga ka warran markuu uga warramay ayuu yidhi lacagtana uu ii soo dhiibo wuxuu yidhi abudar u gee lacagtaas markaasuu yidhi maxaan ka dhigaa wuxuu idhi dee ha u kaalmaysta adduunyadiisa markaasuu yidhi u celiyo waxaad ka tidhaahdaa anigu uma baahniye cid iiga baahi badan baa madiino joogtee ciddaas sii ka dha buu yidhi innaga maanta lacag nin diidi karaa uu yar yahay maanta zamankan waayo waxay naga dhaadhacsan lacagtu waxbay tartaa iyaga waxaa ka dhaadhacsanayd may lacagtu wax ma tarto ka wax taro waa ilaahay baahidayda ilaahay baa ii daboolaya xaajaadkayga ilaahay baa ii quminaya waxaan u baahanahay ilaahay baa ii haya cid kale wax iima hayso lacag uma baahni baa ka dhaadhacsanayd iyaka laakiin ilaahay amarkiisaan u baahanahay ducaan haystaa salaad baan haystaa istikfaar baan haystaa qur'aan baan haystaa acmaal baan haystaa qalbiguna wuxuu ku xasilaya waa diin weeyaan adduunye maaha markaasuu ninkii yaabay war iska qaado may u celi markuu arkay inuu ninkan lacag uunan u jeedin uu qaadanayn ayuu runta u sheego wuxuu ku yidhi amiirka wuxuu igu yidhi hadduu abudar lacagtaa kaa qaato xor baa tahay buu igu yidhiye ar walaal addoonnimada han ka baxe i xoreeyoo lacagtan iga qaada buu ka yidhi markaasuu yidhi kaa qaadan maayo waxaad doonto akhri markaasuu yidhi or iga qaado oo ii naxariiso maxaan kuugu naxariistaa haddaad lacagtaa iga qaadato waan xoroobay buu ka yidhi wuxuu ku yidhi abudar dhegayso hadalkuu ku yidhi eeg haddaad adigu qaadashada lacagta aan kaa qaaday aad ku xoroobayso anna addoon baan ku noqonayaa buu yidhi marka halka adoo aad ka baxday inaan anu galo ma jecli buu ka yidhi anuu addoon xor aan ahay buu yidhi xor bas uu yaabay ninkii lacagta isagoo wadu cusmaan u keenay wuxuu yidhi waad ogeyd markaad igu lahayd hadduu lacagtaa kaa qaato xor baa tahay waad ogeyd ninkan inuu yahay nin aakhiro nin adduunye u jeeda maaha abudar alkhifaari lacagta dhaliili mayno ha shaqaysan qofka muslimka lama leh laakiin adduunyada gacantaa ku hayso diintaadii aakhiradaadana qalbigaaga ku hayso maanta adduunyadii iyadaa maanta adduunyadiina fuushay saxaabadu adduunyada sida faraska loo fuulo ayay u fuushanayeen iyaku adduunyada iyakaa fuushanaa innakana maanta adduunyadii bayna fuushay maanta waa ka tukan kari laanahay
diintii baan ka baran kari laanahay diinteenni wakhti ku bixiyay bay culimmadu leeyihiin wakhti waa ku bixin kari laanahay maxayna haysta waxayna haysta waa adduunyo adduunyada maxay kula doonaysaa adduunyadu inaad iyada la joogto bay doonaysaa hay ka tagin bay adduunyada ku leedahay lamana nacayo adduunyada ha ka shaqaysan laguma leh ka shaqayso xalaal mirad noqo laakiin waxaad ogaataa adduunyadani waa balaaq aakhira ku gaadh mooyaane iyada ha ka dhigan hadafkaagii aakhirada ayayna kaala weynaan Usmaan bin Affaan Allah raalli ka noqdee nin baa nebigu u yimid oo yidhi gabadh baa lay siiyey waxaan ku aqalgalana ma haysto Usmaan u taga buu ka yidhi markaa buu u yimid Usmaan bin Affaan wuxuu arkay Usmaanoo khaadimkiisa ku haysta dubaaradan faynuuskan maxaad u baktiin weyday markaasuu ninkiiba uu yaabo wuxuu yidhi ninka khaadimkiisii ku haysta faynuuska maxaad u damin weyday may kula tahay inuu adiga lacagtii aad gogol iyo dhar iyo weelal islaanta caawa aad caroosadda aad ugu iibin lahayd inaad ka heli ilama abuu yidhi iska kacay Usmaan baa ninka u yeeray war kaale xaggeed u socotaa wallaahi dee waxaan u socdayba war kale ahayd war kale meesha ka socday buu yidhi markaas maxaad aragtay maxaad u socoto dee nebiga ii ka soo diray buu yidhi sallallahu alayhi wasallam oo yidhi Usmaan u tago waxaad ku tiraahdaa waxuu nebi maxamed ku amray wixii caawa aan carooska iyo reerkayga aan ku aqalgelin lahaa hadday gogol tahay hadday dhar tahay hadday biil tahay hadday weelal tahay Usmaan ka qaad buu nebigu igu yidhi dee maxaad u kacday baad igu sheegi weyday dee waxaan arkayaa ninkaaga faynuus ku dagaalamaya wax bixinaya buu yidhi faynuus baad ku dagaalamaysaa ood ku haysataa khaadimkaagiiya wuxuu yidhi dhegaysa buu ka yidhi faynuuska halkaa iska shidmaayey shaqo adduunye iyo shaqo aakhira midna laguma hayn laakiin tan adiga ku siinaayo waa tii halkii loogu talagalay ku baxday hoo qaada buu ka yidhi kiish lacag uu dhiibay israafka iska ilaalinayeen xoolahooga meeshay ilaahay ugu talagalay ku bixinayeen meesha ilaahay u diidayna xoolahooga way ka ilaalinayeen innagana caroos baa lagu leeyahay $30,000 bay ku bixiyeen caroos $30,000 bugbac fanaaniin baa loo yeedhay fanaaniin maxaa ka dambeeya laba reerka bugbac iyo macsiyo lagu dhiso 2 bilood ma gaadhana way kala duulaan ilaahay uu kala qaadaa markiiba laana marka hore macsiyo lagu dhisay diin iyo alla ka cabsi laguma dhisay israaf baa lagu dhisay baatil baa asaas looga dhigay muslimku war muslimku dhaqaalihiisa xor uma tijaaradaada xor uma tihid waa inaad xataa cilmi albayci washaraa علم البيع والشراء علماء قالوا يويدي عمر بن الخطاب سوق مدينة انتو قالوا أورنجري لا يبيع في سوقنا هذا إلا من تفقه الدين ورياضة سوق يقع نوح كوي بن كرام مجرب عمر أورنجري إلا نن مسجد النبي انتو تقي علم البيع والشراء علماء كصبر تيمو يعني إنك أنا ما أنت عيد والبقى نعصب بالوضوء تشين يا تايلاند بلغوا الدولي هبري بقى سعودة كلها تشين هو سعودة حاجة سعودنا war muumin waxa la doonayaa inaad noqoto muumin labada indhood ee kugu taala ilaa adduunyadaada ku eego ilaa aakhiradaada ku eego aakhiradaada inay adduunyada ku seejin adduunyadani waa in yar waxaan joogaynaa in yar walaalayaal intaa yar een joogno ilaahay aan kaga baqno oo diin aan ka qaadano oo diinteena aan baranno oo diinteena aan ka shaqeyno oo zaman adag baa lagu jiraa zamankeen lagu jiraa almutamassiku bidiinihi kalqaabidi cala aljabr buu nebigu yidhi waa zamanu nebi maxamed sii sheegay 1400 sano ka hor ninka diinta maalinta iraada waan xajisan waxa uu ka dhignaan doonaa nin dhamac loo dhibay buu rasuulku yidhi bulshadaad ku nooshahay maanta eeg waa mujtamac khayrkoogu yaraaday sharku batay meeshaad u baxdaba ishaadu waxay ku dhacaysaa ma wax ilaahay ka farxiya mise wax ilaahay ka cadhaysiiya mujtamac waa mujtamac qofku hadduu yidhaahda maanta sunnaha nebiga ku far adayg way adkaanaysaa inuu qabsado ilaahay u dhib yareeyo mooyaane marka zaman adag baan ku jirnaa waxaan kaga badbaadaynaa waa maxay rujuuc ila diin inaan diinteenna u soo noqonno oo dadaalka diinta ay culammadu mar walba inoogu baaqayaan ee masaajidda laga naadinaayo ee maraakista laga naadinaayo
مدارس لغا نادينايو اجتماعيada loo qabanayo umada loo fikirayo war dadaalka diinada maanta caalamka ka socda la rabaa caamadeenu inay culimada intay garab joogsato aan meel kale u wada jeesano insha Allah dhahada tama gudoona dadaalka diinta bisa dhageystayaal wanaagsan baan noqonaa ya dhageysta wanaagsan waxa ka wanaagsan dhageysigu waa min diin weeyaan laakiin waxa la doo inaad noqoto adiga laga rabaa inaad diinta qaybtaada oo ka qaadato waad ka qaadan kartaa saxaabada rasuulku nin walba salaaxiyad ilaahay uu geliyay umadu ku anfacay ki cilmi laha cilmigu umada wax ku taray ki dhaqaale laha dhaqaaluhu umada wax ku taray ki raganimo laha raganimadu umada wax ku taray ki wajahad laha wajahadiisu umada wax ku taray Usmaan ibn Affan Umar buu nabigu u diray Makka markii sulh al-Hudaybiyah waa ka cudur daartay Umar wuxuu aniga may buu Usmaan baa ku munaasaba buu Usmaan baa ku munaasaba Usmaan buu nabigu yiri dal waa runtii Usmaan adigu tag Khalid bin Walid geesinimadii raganimadu lahaa umadu wax ku taray maalintu soo islaamay buu nabiga seefta u keenay seeftan iga qaba buu Ilaahay dambi dhaaf ii weydii maxaan kaaga qaadaa seefta ii sheeg intaasoo muslimiina ku laayay buu ka yiri ka qaadi maaye intaad muslimiin ku laysay in ka badan inaad cadowga Ilaahay ku leysaan kaaga rajayne qaada buu dhis seefto Ilaahay diintiisa u jihaad wala raganimadii ba xagga kala loo bedelay bas kii caalimka ahaa cilmigu umada ku anfacay kii dhaqaale lahaa dhaqaalihiisu umada ku anfacay zamankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxa uu nabigu diyaariyay ummad nin walba salaaxiyada ku jirta loo isticmaalayo diinta dadaalkeega marka inakuna kulligeen insha Allah ta'ala khayr baa inaga muuqda khayr jacayl baa inaga muuqda da insha Allah dadaalka diinta dhinac kastaba dadaalka diintu waa leeyahay wallahi waa runtan inii sheegay macallinka quraanka dhigaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa sheekha masaajidka darsiga umada marinaya dadaalka diinta qaybtiisii buu ka hayaa jamaacada Ilaahay dartii u socda qaybtoodii bay diinta ka hayaan muhsinka dhaqaalihiisa masaajidda ee madaarista ku dhisaya diinta qaybtiisii buu ka hayaa qofka muslimku diinta intuu ka qaadan karo oo ka qaadan kara wa'tasimu bihablillahi jamac baa la sheegay jamac hal nin kasto muslima diintaasi wax waad u qaban kartaa war u qabo kalimada wanaagsan buu nabigu waa sadaqad kalimada wanaagsan dariiqa muslimiintu ay maraan ninkii ka gooya geedka buu nabigu yiri jannadu galay buu rasuulku yiri jannada ku arkay buu yiri haweenaydii masjidka nabiga marka laga dareeray imanaysay ee ka qaadaysay maaragtaanay waxa masjidka nabiga ku daatay ka qaadaysay markay dhimatayna waa laga qariyo nabiga looma sheegina waa la aasay marka buu nabigu yiri jannada ku arkay buu yiri jannada ku arkay jannada ku arkay maxaad igu sheegi weydeen buu nabigu yiri khayrku yaraysi male marka waan inagu dheereeyay insha Allah ta'ala wixii wanaag iyo khayr soo dhaxmarina Ilaahay bay soo dhaxmariyay anigana miisaanka xasanaadka Allah ay saaro ikhlaaskana Allah noo wada ziyaadiyo culimadana soo dhaweysana waxa leenahay jazaakumullahu khayr marka Allahna naga wada raali noqdo kulligeen hada wa sallallahu ala sayidina Muhammad بسم الله الحمد لله ثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وعاف مبتلانا يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل